السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الشرف الأقيمي قبضا ومركلة المقالبس. برتا أنا قد ونيسانو وبارلين أوفيشيال. أبياد أصحاب الشرف وأنا تعالى مالك استجوبتان. سومالي وين يس بارلين أوفيشيال. هذا أني تعالى هاي وحين ليها ولا له قالياتهين في ملكي جا كمتهين وحين ليها مالك سومالي جوبتون نبض إبرواقة قوارة. بالكركا جدود كان هيجا هذا نينا نكان وإلى نافسان بارين أوفيشيال كوياعة هذا كديب إن شاء الله وحكى هذا دونتان كديبية إني حيس قليل عامر وحكى هذلنا إن فرحنا ما فينا لكن وحكى هذلنا أرين مرجلي وأن نلدا وندونتان وحي فكر كنا يعقل جننا هوس بنقول سوداء دونتان دعنا وينك كجبهة وجبر ولا شينا وجبر سوماليات أو دبن هي عندها قصة هذه بل هرت وحير إنه داونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ديال وعنو ونكسم ملك سياد شوكتان واحد نقاس عتان وربعين الجزيرة الصومالي وحن كسوغان هاي مقالة الكشافن ودن كان شرملك أنا وانا طبعا وحنا هاي شينا مدحي إن وحنا أني ممانتا وصوب وقرني إن حبون عاشة حبون محمود ودقن مقالة الكشافن طبعا ويكون عضي أهين murugadeeda leh qofkii ilmo dhalay ama waalida uu dareemi karo arintaas waxa laga qaatay wiil yar oo xanuunsan sida oo kale dabcan waxa ay haysataa laba caruur oo kale iyaguna oo xanuunsan oo waxay kaga jiraan isbitaalka ilmo kale oo yar oo ay dhawaan dhashayna waa ay haysataa inta mas'uuliyadeeda iyada ay lahayd dabcan wax mas'uuliyad darra oo xaggeeda ka yimina loogama qaadan ilmahaas iyadan waraysi kooban la yeelan doona iyo ehladeeda qaar kamid ah daawadayaal marka hore Aisha ku soo dhaweynayna Aisha soo dhawow waljisirna ku soo dhawow bal dareenkaaga iyo sidii wax u dhaceena nala wadaag Aisha haboon ama Aisha haboon sida muuqata mas'uuliyadda afarta ilmood hadii ka laga qaatay laga soo tago saddexda kale mas'uuliyadooda iyada haysabeeyeen oo waliba laba xanuunsan tahay oo laba xanuunsan tahay isbitaal ku jirto midna uu yar yahay xanuun mas'uuliyadda gabadhaas aaway dadkii oday talo waxa weeye horta qurbuhu wuxuu wataa dhibaatadiisa dadka badiba maanta wadankeena joogo hooyo wadankeena hooyo waa nimco waa qaali lama heli karo waxa li hantii macaan waa midaan hooy laga awra maanta haday dhulkoodii hooyo joogto inuu ka dhinta maahane ama hadduu xataa xanuunsan yahay inuu ka dhinta maahane kama fakartaan qof baa kaa qaadanaya ilmahaagii adigoo u jeeda baa qof adiga kulamida kaa qaadanaya oo aadan ka daba hadli karin haddii aad hadashidna uu kaa rabaa waddo dheer iyo dhibaato iyo ilaahay lacag bixin balaayo ilaahay subxaana wa tacaala inuu kaaga soo qaado maahane kaaga soo qaadan karta is jirin marka dhibaatada haysata weeye familada ku nool maanta gaar ahaan qurbaha dhibkaasna Cimraan maxaa keeni kara leedahay wallahi waxyaabo badan baa keeni kara laakiin kul barorta aan ku sii socono gabadhan sababaha looga qaatay iyadu waxa inay ka hadasho dareenkaaga iyo sidii wax u dhaceena nala wadaag salaam calaykum waxaan ugu dhacay waxaan hooyay afar ciyaar oo jarma ku haysata laba ka xanuunsan yihiin isbitaalka kaga jiraan midina ka dhawaan dhashay laba bilood bay inta jirtaa inaan kan yaray markaan isku haysano qolada yuuma intaan isku xidhanahay inaan shil sama jiro weeyaan shil sama la joogay waan dhalay markaan dhalay kadib ayaa bay ugu dhaheen markaan ka soo baxay isbitaalka ku dhigay inaan yara gormadii jeediyay la soo celiyay يقولين كذا مسؤولين ورقة صحيح بقول ورقة لا مسيحية محل فانسية بس كذا مسيحية ورقة هنا كذا ميركو هبول بالكلية واي هذا كاين كير كل جنا مركو تري جوز وأنت كين دركات تري بيجا بس خلوه قاعد بيجي نشري مركو حيقولين سادرتي أيام كوس وعيني إن أنت يبان وبقينا وبدليا بده مركو كل ما درت هالجرسان ويشو سنسو كل نسوان هاي يبني هذا صيغ غير خلاص بدل مو كل كريا يبغى يقول هالكريا ما دعي سويت محكمات بسلك لنا محكمات رسلا قال اللوير بقبصدي لويركي أنا قبصدي أيها هذانا لما تضو حاجة صعب تولي قلدي جوانتي أنا سكوت حنا نسكو على
kolba waa luuqada macnaha waa socialka ku haysta dabcan waa luuqada jarmalka way dabcan saa u fahansanahay laakiin gabadhan jarmalka ku nooshahay 4 ciyaala ku dhashay 4 ciyaala ku haysataa kolba 3 laba waa ka xanuunsantahay sidaan hore u sheegnayba 3 baa ka xanuunsan macnaha mid xanuunkii waxaa ka qaatay ciddaan ku haysata labana dhakhtar bay ku jiraan gabar yarna way haysataa oo hadda laba bilood almuhim dawladda ka qaadatay baan oran karnaa anagu waaga kale sheegaysaa okay gaabku meeshu ka yimid mataqaana meesha dhibaatadu ka dhacday hadda waan dareemaya macnaha waxay tiri markii aan dhalayay oo gabadhan yar foosheeda baa macnaha dee baa malaha loo sii hayay intii loo sii hayay kadib gabadha yareed markuu ay dhalatay oo de gurigeedii malaha la keenay bay waxay tiri goormaa wiilkeera lay soo celinaya lagu soo celin maayo baa la yidhi warqadan saxiix macnaha ciddii u hayn lahayd ninkii ilmahan dhalay hadduu la joogo isagaa ilmaha cadowba ma arkeen isagaa hayn lahaa marka isagaa guri ku hayn lahaa ninkii baa ka maqan dee gabadhaan haddaysan ahayn dadkaas laga soo qaaday qaxootiyada haddii aysan ahayn de ma ahaan ilmahan hadda 2 bilood buu jiraa ilmahan hadda ay sheegayso gabadha yarta cunugaana 5 sano jira oo 5 sano ay haysatay dumarka Soomaaliyeed dhibaato kalena way jirtaa waxaa laga yaabaa ilmahan xataa inaysan isku aabba ahayn anagu hadda ma naqaan gabadhan wax dhici karaan ka hadlaynaa lacala anaga gabadhan markaan saa guud ahaan uga hadlayno iyada waxaan ka hadlaynaa horta dhibka haysta hooyada Soomaaliyeed ulajeedku wuxuu yahay hooyooyinka Soomaaliyeed dhibaatada haysta ee qurbaha jooga markii ay noqdaan hooyo iyadu ilmihii korsanaysa markii ay noqoto dhibaatada ku dhacda bay kamid tahay marka baa leeyahay waxaba dhici karta hooyadan hadda la wareysanayo waxa dhici karta in ilmahaniba ay kala aaban yihiin baa dhici karta waxa dhici karta in isku aaban yihiin odaygii uusan maaragtay joogin dee kolba ma joogo odaygu ma joogo waa caddahay inay bilaa oday tahay islaantani gabadhani waa bilaa oday way caddahay laakiin odaygii ma iyadaa banaanka u turtay ma awal bay kaga timi waddanka banaankiisa ma dhowr ninoo kala dhalay allahu aclam laakiin kaba soo qaad hadda haddii xataa ay dhacday dadka calaf baa meeshaan jira hadday kala tagaan xataa wiilkii gabadhii kan hadda maanta guursaday oo 2 bilood ilmaha jira ay u dhashay dee inuu caawiyo xataa asagoo xaq u lahaa laakiin waxaan gaar ahaan dhihi lahayn horta kow u duceeya oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu uga soo qaaday cadowga ilmaha ulajeedka aan usoo galay muhiimada ugu weyn waa ma naqaan anaku jarmalka un ulay ku nooshaha maqalnay gabadhan Caaisha la dhahaa maqalnay wax kale oo kasii faahfaahsan annaka kama ogin marka waxaan dhihi lahayn maanta familada ku nool qurbaha maanta waa aragtaan ilmihiina sida loo gurubsanayo haddaad wax kaliya oo laga faa'iidaystaan waxay ka faa'iidaystaan dadkan ilmaha qaata 2 qof markay isqabtaan wiilka macnaha ninka iyo gabadhu markay isqabtaan oo isku dhacaan oo halkaa problem ka yimaado baa badiba ilmaha laga faa'iidaystaan dad isjecel oo isqabo ilmihii laga qaatana waa jiraan maanta familada ku nool wadamada reer galbeedka dhibaatada ay mutaan inta badan sababta ay tahay ilmaha waxaa loo qaadanayaa markii la arko hooyadii iyo aabihii oo dulduleel ka jiro dulduleelkaasi ka faa'iidaysanaya marka waxaan dhihi lahay familada maanta ku nool wadamada aan ka hadlayno ilaahay inuu qalbigooda inta ishaysa isku soo jeediyo si aan ilmahooda iyo ubadkooda looga faa'iidaysan waxaa maqli jiray bahal baa wuxuu ka qaatay digaag ilmo yar ama bahal baa macnaha bahal kale ilmo yar ka qaadanaya maanta wadamada aan ku noolnahay sidii bay noqdeen ilmihii in la gurubsado ilmihii aan dhibaato qabin ilmihii oo qurux badan in wax yar oo basiida lagugu soo gabado marka waxaan dhihi lahayn familada gacmaha isqabsada calooshiinana isku furaha gabadha Soomaaliyeed waxay tahay gabadhaani sida ka muuqata ilmaha ciday uga tagtay ma hayn
مسيحية محد عاد وحفانسية اسكو مسيحية ورقة إن كيرا ميركو هبون بالجلية واي هذا كاين كير كل جنا مركو تربي أو سعودي كين درجات تربي بس خلوه قاعدوا لجاني شري مركو حيقولها سادرتي أيانا كوجس وعينين إن أنت يربانا وقبقينا ودليا ويدها مركو كورو ما تقول ترجريسان هو يشون سنة سو كورني سبان هاي إني هيدا سجى قار كلام كبدا بمكورين كريا يبغى يقول ترجريا ما دعي سوي ترى محكوات سلقينا محكوات ورسلق قال لوير بان قبصدي لوير كي أنا قبصدي أيها هدنا لبعضه وحيجا قصعة تولي قلدي يوم عمتي أنا سكوت الحرنا سكوت على ويلوير كي وعليه الميرا بقشدي والوجودي دي مسوا أي كرسي هذا مدرسة حسنا بقص السعوديين أنا سوي إيجل لو بصدق بلاده وقص السعوديين أنا سوي إيجل ما كان ساقط معناها واحد كلام ماشي كسيعة أو أي هذا كذا كم من قبلا صدق بلاد ما أركين إني سوي أكتر والودي دي أو بل علمه هذه حالة وكسبينها والودي دي عجيب markan saaga u tagay loo yarfay naqti waa ka soo noqotayna maxaa dhacay ilmi yarayna soo eegay dooriya waxay ugu tiri afcad qoladii ku shaqaysay ee ku timaada ee UMT iyo ku dhaxaysa gurigaaga waxa inay haysataan bay sheegeen UMT inaan ilmaha ku soo tuseen bay sheegeen ilmi yara wali alanka meel uu ku sugay warumaya dhimasho iyo nool wuxuu ku sugay warumaya ilmaha laymana soo tusin meel uu ka hadlayna ma arag maalintii aan dhaliyay baan iigu dambeysay subaxan ka saaray baskaalkaas anigana فوش رباني جاي يقولون يقلتان كده معناها إذا واحد مركي فوش وقبطين بيجوا بيفتي بس كسيسة سكول كده هو يدي وأمور يساعد إذا وقت تماهيس ده هو حاصل في الدنيا صرنا أباهن إيه هو يدن كلا تيجي هو اللي بعتضوا وضد كان لا كم دون دي ما محاول دراسة مركز عديدة في ميلاد الصومالية وما أنت كنا قدام ظهر قربتك waxaan leeyahay waa in iskaashi la sameeyaa haddaan hooyada iyo aabuhu aysan isfahansanayn oo ubadkan aysan wada ilaalin daaqaday ka baxayaan maanta inta dhaqan oo ilmuhu aan laga qaadan wax kale kuma dhaqnaa laba waalid oo isfahansan marka ay isqabaan ama uun xataa hadday doonaan ha isku xumaadeen laakiin danta ilmahaas ka fekeraya ilmahooda cidna ma hareer ما قاعد كرتو لكن ده هو يدنا كله دلوك وين أولوجي بيبا وإسكعد هاي ودينا عام وتكتب ده ما هي هدو حلقة وقعنا إني سويت هريبتين لعل هو يوتشوجين ولا يوتشوجين وإسكعد هاي هو أبي يوتشوجين ما أنتي أو أيضا الله معنا الله كسكو عد بالآدم يسوتشوجين الكلي جيتها فركلي فورم هذا ويل كي جورستنا أما هلا يسكت درا أما يسكت حمادان إلا إن شنط فرض مسنا واحد شرا نمحون واحد شرا جبرحون مرك هذا محك سوق جبيني هذولين واحد سوق جبين لها أنا قهرت السيرة بقى يعني أنت بدنا واحد قبان كرا ما هالقف قبلنا واحد عطسنا يسا إن قرب للسيو وجالية الجرماني دقن والصومالي دقا مالك استوها هاتي طبعا جالية بدن باتشلا ضلتنا ويليه طبعا سيدا ده سويدن أو كره جالية بدن باكجرا ضلت جوده سوي ما دنا ويليه مركز جالية ده هاس أو كره هدي إسكاش سمايان لو يكفي العكس بالغ بحين كرا كودي ولا جهرت من كرا ولودو كرا المهم والصواب بحين كرا لكن هدي إذا تولد عيلة أكو حرنتها كلي جدنا تهاي لو قدي أي سنة أقون قرب هيسنين وحاوية أيسن هلين مرة بس كيد شهرين لو وصي قاضنية بفهمسه حنقولت لنا هنا مد الصومالية حنقولت لنا هنا إن إسكاشة السمايات ونيك ينارتيسو أي إسفهمان وناقن قوة النورادان حماتذا إيو لبعتذنا وحلالها لبعتذا جيتا واحد هاي نبى واحد جورسانية كبر ناقو جورسانية مركو جورسدو كبر لي ilmay u dhalaysaa way isku xumaanayaan way kala tagayaan gabadha nin bay wali u baahan tahay ninkan waxa laga yaabaa inuu iska gaba tago oo ingiriiska isaga guuro haduu doono ilmihi iyada hooyo oo ku dhibtoonaysa hadhow mid kale guursanaya ka kala guursadana ilmu uga tagaya mid kale guursanaya mid ka kale ilmu uga tagaya kolba gabadhan halkan aabihii ilmaha caruurtan aabahood hal marna may soo qaadin marka maadaama aysan soo qaadin aniga wajiyo badan baa iiga baxay waxa dhici karta
aabahood laftigiisu inuu dhintay baa dhici karta, waxaa dhici karta inuu isaga tegay, waxaa dhici karta carruurtani inay kala aaban yihiin. waana masiibada ugu weyn ee ka dhacda wadamadeena. aad iyo aad macnaha haddii maanta wiilkii gabadhu intay isgarabsadaan, horta waxa ugu badan oo maanta dadka isku dira wadamadan reer galbeedka waa dhaqaalaha. lacagna waxay tartami jirto, lacag waa la halaa waana la waana isku shaqeynaysa waa soo saxranaysa bas. lacag waa la halaa waana waa. laakiin wiilkii gabadhu hadday hal koonto samaystaan oo hal gacmaha saa iskugu dhagaan oo isku qalbi furnaadaan, waxaa ka dhaadhacsan dad badan nin daacad looma noqon. gabdhaha qaarkood gabdho badan bay ka dhaadhacsan tahay nin daacad weliga ha u noqon. saamay isugu shakisaan maya ragguna waxaa ka dhaadhacsan naag calooshaada ha u furfurin baa ragga qaar kayd gooniya yeelo baa qaarkood baa ka dhaadhacsan. laakiin kaydkaas gooni u yeelanaysid waxaa u kaydinaysaa waa iyadii carruurteeda. mid kale oo inta ayada aad ka tagtid aad keentid oo carruurtii ku dayacdid, kuwaanaad dayacda, kuwaasna faa-iida uma gelisid. laakiin halka cunuga ilaahay ku siiyo ilaa wax bartid oo ku mitidid oo horumar gaarsiisid, wax ka wanaagsan ma jiro. gabadhan waxaan dhihi lahaa ninkaaga daacad u noqo, hal koonta yeesha, wax wada tabcada, labada familba waa labadiina garab, familkaaga iyo familkiisa labadaba waa hooyo iyo aaba inay yihiin. wax wada tara, isgarabsada, saasaa horumar ku gaaraysaan, carruurtiina in kugu badbaadaysaan, nolol wanaagsan iyo niyad iyo raaxo ku noolaanaysaan. intaasaa uga baxayaa. aada iyo aad aniguna waxaan leeyahay waa inta ay boqoradu sheegtay, waxayna ku fiican tahay in iskaashi la sameeyo. haddii aan wax la wada qabsanna wanaag iman mayo. gabadhaas hadda hadlaysana xogteeda dhabta ama hayno. ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay gaalada ilmaheeda uga soo sakhiro, cadowgaa ka haysta in ilaahay ilmaheeda uga soo sakhiro, oo iyagu ilmihii ay iyadu dhashay bay iska xejinayaan. waxay moodayaan inay maaragtay way og yihiin, shaqana kuma lahan, way og yihiin, laakiin inaysa wadan haysan nabad ay og yihiin ayagu, laakiin nabad haystaan ilmihii bay cadibaya. marka muhiimaddu waxay tahay daldaloolka laga soo galay inta badan waalidku iyagaa leh inay iskaashadaan ayaan ka codsanayna. waxaana idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum